توتنهام waxay heshay ciyaaryahan aad u muhiim ah Maxamed Qudus. It's a big moment. I'm finally here. I'm very happy and can't wait to start. Spurs waxay ka bixiyeen 55 milyan ciyaaryahankii hore ee u ciyaari jiray West Ham. Of course, we saw Spurs splash the cash this week. Mohamed Kudus making that move from West Ham to Spurs. Maxamed Qudus waa ciyaaryahan dribbling leh, ciyaarta jabiya isla markaana caawitaan leh. waxa uu ku fiican yahay garabka midig halkaas oo bandhig fiican uu ku sameeyo. So often unstoppable. Thomas Frank wuxuu leeyahay qorshe cad oo uu ku hogaaminayo. The project and how the manager sees I can develop under him, where he's come from and seeing the amount of talent he's developed to become great players. It's a big sign of why I wanted to work under him also. Tottenham seasonkii hore waxay ku dhamaystay kaalinta 17aad balse waxay ku guuleysteen Europa League taasoo u saamaxday ama u ogolaatay inay ka soo qayb galaan Champions League. Spurs waxay u baahan yihiin ciyaaryahan sidan oo kale ah oo wax ka bedeli kara isla markaana wax caawin kara. waa saxiix run ahaantii u muhiimsan kooxda Tottenham.